iyo magaalada Khaza sida aan ognahay waxa uu galay maalintii 319aad waa 319 maalin oo xiriir ah. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken wuxuu ku sugan yahay Bariga Dhexe, waxaana uu sheegay in Netanyahu uu aqbalay wada hadallada maxaabiista la isku dhaafsanayo, kaliyana la sugayo dhinaca iyo Xamaas inay dhankooda ay aqbalaan wada hadalladan. qoysaska maxaabiistooda lagu hayo magaalada Khaza ayaa Netanyahu iyo xukuumaddiisa waxay ka dalbadeen sida ugu dhaqsiyaha badan inay u meelmariyaan heshiiska maxaabiista la isku dhaafsanayo. waxaana qoysasku ay yiraahdeen Netanyahu waqtiga waa inagu socdaa, waxaa qasab ah inaad qalinka ku dugtaan heshiiska maxaabiista la isku dhaafsanayo, dagaalkana lagu soo gabagabeynayo. iyadoo sidaa ay tahay marka Israa'iil waxay ku dhawaaqday in ay gacanta ku dhigeen ama ay soo heleen meydadka ilaa 6 maxaabiis ah oo ku xirnaa magaalada Khaza, waxaana muuqanaysa in dhammaantood la dilay intii dagaalka uu socday, qaarkoodna waxaa la leeyahay waxa la dilay bilowgii dagaalka. Israa'iil waxay shaacisay markaa in meydadkan ay gacanta ay ku soo dhigeen ayna soo furteen. 6 ruux magacyadoodu ayaa la soo bandhigay, Nadav Popweli iyo Yegash Yoram iyo xubno badan ayaa ka mid ah magacyadooda, kuwaasoo lagu dhawaaqay maanta oo Talaada ah. marka waxa la isweydiiyey halkee laga soo qaaday maxaabiistan meydadkooda, waxaana ay mas'uuliyiinta Israa'iil ay sheegeen in magaalada Khaza laga qaaday iyo deegaan ku dhow magaalada Khaza oo bilowgii dagaalka la weeraray. inta badanna waxay yiraahdeen waxaan ka soo qabanay ama aan ka soo helnay meydadkan gudaha magaalada Khaza. waxay sheekadan ku soo beegmaysaa iyada oo maalintii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu tagay magaalada Tel Aviv, mas'uuliyiinta Israa'iilna uu la kulmay. Xamaas ilaa iminka ma aysan sheegin maxaabiista magacyadooda la soo bandhigay inay gacanta ku hayeen iyo in kale. waxaana khubarada qaar iyo falanqeeyaasha amniga ay leeyihiin waxaa suuragal ah in meydadkan ay ahaayeen kuwo Israa'iil mar horeba ay xaqiijisay inay dhinteen, laakiin waqti xaadirkan lagu soo aadiyay iyadoo la ciyaarayo game siyaasadeed ama ciyaar dhinaca warbaahinta ah. xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta warkama aysan soo saarin arrintan, laakiin horaantii bishan waa tii afhayeenka muqaawamada uu sheegay in mid ka mid ah ilaaladii dhaqdhaqaaqa Xamaas uu toogtay mid ka mid ah maxaabiistii gacanta uu ku hayay, 2 kalena ay dhaawacmeen, weliba dumar ahaa. Israa'iil marka waxay leedahay maxaabiistaas ayaan gacanta ku soo dhiganay. hay-adaha amniga iyo saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaana sheegay xalay inay meydadkan ka soo heleen dhinaca magaalada Khaza kadib markii howlgal ay fuliyeen. sidoo kale ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay helaan macluumaad ku saabsan halka lagu hayo maxaabiis kale oo ay tuhunsan yihiin inay gacanta ugu jiraan xogaga muqaawamada, laakiin deegaanka ma aanay sheegin. waxaana ay sheegeen inay sii baadigoobayaan oo ay ku raajoogaan xubnaha maxaabiista iyo halka lagu hayo. marka aad eegta dhinaca kalena xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta waxay ka jawaabeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken oo Netanyahu la kulmay, sheegayna Netanyahu inuu aqbalay wada hadalka, dhinaca Xamaasna jawaab laga sugayo. muqaawamadu waxay sheegeen Netanyahu iyo Biden waxay isla garteen inay yahayn shuruudo cusub oo Israa'iil ay wadato, laakiin muqaawamada taasi ay ka soo horjeeda aadna ay u cambaareynayaan. Osama Hamdan oo ka mid ah mas'uuliyiinta dhaqdhaqaaqa Xamaas oo ku sugan magaalada Beirut ayaa la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay, waxaana uu sheegay soo jeedintaasi in ay tahay mid gabi ahaanba aanan sal i raad ku lahayn soo jeedintii iyo wada hadaladii hore ee Xamaas iyo Israa'iil u dhaxeeyay oo xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ay aqbaleen. Xamaas waxay mar hore u xaqiijisay dhexdhexaadiyaasha in aan loo baahnayn wada hadal cusub iyo shuruudo cusub iyo fikrado cusub oo miiska la soo saaro, laakiin taa beddelkeeda waxay yiraahdeen waxaan u baahannahay in la dhaqan geliyo soo jeedintii madaxweyne Joe Biden, sidoo kalena la ogolaado gargaarka bini'aadanimo in la gaarsiiyo dadka shacabka ah. sidaas waxaa yiri Osama Hamdan oo ka mid ah mas'uuliyiinta dhaqdhaqaaqa Xamaas. Hamdan waxaa intaas uu ku daray in Yahya Sinwar, hoggaanka cusub ee xafiiska dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee Xamaas, in uu sii dabagelayo wada hadaladii hore iyo heshiisyadii hore loo gaaray, heshiiskaas oo ogolaanaya inay ciidamada Israa'iil gabi ahaan isaga baxaan magaalada Khaza oo aysan ku sii sugnaanin Philadelphia iyo dhidibka Nazarim iyo guud ahaan magaalada Khaza, dadkana loo ogolaado inay deegaankooda dib ugu soo laabtaan. marka Hamdan waxa uu yiri anaga taas ayaan isku ogeyn, mid cusubna ma qaadanayno. Netanyahu heshiiska cusub ee hadda uu ka dhaadhicinayo Mareykanka waxaa ku jira in ciidankiisa ay sii maamulaan dhidibka Philadelphia loo yaqaano. waa 14 kilomitir
waana xadka falastiin iyo masar u dhexeeya. masaarida arrintaasi waa ay diidan yihiin, suuragal ma ah bay yidhaahdeen inay ciidamada israa'iil halkan ay ku sugnaadaan, maxaa yeelay heshiiskii 1979kii aan galnay ma ogolaanayo in ciidamada israa'iil halkan ay kusii sugnaadaan. heshiiskii Camp David qodobo ka mid ah oo lagu heshiiyeyna lama burburinayo. sidaas waxaa yidhi dowladda Masar. waxyaabaha ka soo kordhay